كينيا أو أيضا بسكجل السنة أو حركة إذا صوم على أساس جماعة يقول تاجا أيام در قارئ بوش توطيه هذا هو حما إن صوم على أيضا سكجبيو هذا هو حما وحي ماشي كده عن وحي مسؤولية ده قاعدة ما لحظة صومالية وحي راس كمبوني كده عاي دولة أيا قاعدة الصف وحي برلمان كده عاي فريم سمينا إن دولة قاعدة الصف أحمد مدوى على ساق وانا أحمد مدوى نلقص لقى بحنا أحمد مدوى الشيء وما شيء والله بيتبعون وتابعين إمال المجال مدينة للدجالاي أحمد مدوى عيدنا وهاستا الله بيتمسنا وعيدنا لسه مركا علمية لقاد وحاول أنت لما تعلاه ونحرس دولته ويجل عنته دولته فكر دير ماله دولته dadkii wax soo saarka lahay ee fikirka lahay ee ku haboonay adeega bulshada iyo nabadeynta wili ma aysan soo saarto axmed madoobaha la soo qabto ma jirto cid ku kalsoonaan waayo ma jirto madax bannaan shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa si kooban uga hadlay dareenkooda la xiriira wixii ka dhacay magaalada Ras Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose intooda badan waxay eedeen xoogan u jeedinayeen barasho la'aan ay sheegeen in dawladda federaalka ay ciidamo ku geysay magaalada Ras Kamboni sidoo kale waxay fariin dheer u direen madaxweynaha Jubbaland oo ay ku tilmaameen in si qaldan uu ku weeraray ciidamadii qaranka haddaba aan isla daawano qayb kamid ah shacabka caasimadda oo aragtiyaan ka dhiibtay xiisada siyaasadda Jubbaland dawladda federaalka iyo ciidamadii isku dhiibay Kenya ka talaabay xadka waddankaasi iyo horta wixii Jubbaland ka dhacay horta ceeb ay ahayd waxayna ceeb ka tahay qaranka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed difaaceedana waxa u maleynaa dawladdu inay xogaa ka gaabisay sababtuna waxay tahay in maanta ceeb anagu adduunka looga gudbiyo anaga dhexdaan aan isceebayno waa laga fiican yahay hore ceebta u dhacday waxay ahayd tii baarlamaanka oo isku dhex feereen mid labaad hadda soo kordhay isla bishan dhacdayna waxay tahay waa midaan Ras Kamboni ciidankii jamhuuriyadda maaragtay amniga loo geeyay meesha Ras Kamboni in hadda maleeshiyad ay weerar ku soo qaadeen waana waxa ka xunnahay laakiin waxa waajib ah dawladdu way jilcantahay dawladdu fikir dheer ma leh dawladdu dadkii wax soo saarka lahay ee fikirka lahay ee ku haboonay adeega bulshada iyo nabadeynta wili ma aysan helin xageedana ma aysan aadin dawladda ilaa hadda waxaan uga jeedaa nin jeclaysiyan uga jeedaa in adeeraysiyan uga jeedaa hada mana ahan dawladnimadu ma ahabo dawladnimadu ma ahade in adeerkay sargaal iga dhig in adeerkay xilfiis igu dhiib dawladnimo lagu ma gaaro mas'uuliyadda dawladda qaadayso أنا هذا كل شيء قاعد وحي هالكاس كده عيد دولة أيضا قاعدة الصف مرون على سو شيء قام سبب وحي راس كمبوني كده عيد دولة أيضا قاعدة الصف وحي برلمان كده عيد فريم سمينا إن دولة قاعدة الصف وحلا جرب شخصي والبو دولة كجرة إنه قبيل كصوب قرن ماذا وقاده ما هندي اللي بان هذا أسكر الرباحي وقبيل كيس اللي يراه ده أرض ساق قرحي اللي يراه ده خلط وحلا ربي أسكر جاز دولة وشقيا إن دولة كله حساب تطلع الكاس أفر بريو اللي يركل فقد يكمل قراني سمع كل ما Ras Kamboni dawladda qaadayso xasan sheekh xasiiba qaadayo iyo ra'iisul wasaaraha qaadayo wasiirka gaashaandhigga qaadayo taliyaasha ciidanka qaadayo sababta aan ku leeyahay sidaasna wax ay tahay tusaale ahaan aniga hadii amniga la xil saaro waxaan leeyahay garaadkeeda aqligeeda waxa waay meesha waxa aan geeyay waa dhalinyaro waa deegaankii Soomaaliyeed xaqay u leeyihiin inay joogaan laakiin sidii la rabay in lagu ilaaliyo lama ismiin siyaasadda la isku haystay dagaalka keentay xasan iyo isku haystaan Axmed Madoobe waxaan rabaa inaan shacabka ku yiraahdo midna ma saxsan labadaba way qaldan yihiin laga yaabaa in dadka isku miisaamaan Axmed iyo Xasan oo la yiraahdo Xasan waa nin dawladeed oo shalay ku yimid doorasho ku tagay waa sax Axmed 13 sano haysta laakiin markay labadooda timaado ma jirto kitaab akhrinay laga yaabaa in yiraahdaan dawladnimada sharciga Soomaaliya horta dawladnimadeeda markay timaado oo ah dawladnimada ku dhisan tahay waa nidaamka sharciga ee dalku baarakaay u leeyahay ma ahan mid dhamaystiran maanta waxa la rabay Xasan iyo Axmed baa is haysta ma ahayn in dagaal lagu kala baxo Soomaalida waxay taqaanaa dawlad la'aan oo ayadu hawlaleey oo baarka beeralay ayaa dawladnimada loo keenay lixdan ila kala adkaado lisfeere bis taqaanaa laakiin dawladnimada waxa weeye marka la isqabto in garsoor lagu kala baxo maanta mushkiladda jirta waxa weeye hadii Axmed uu dacwoon lahaa ama uu Xasan dacwoon lahaa ma jirto garsoor loo dacwoodo maxkamadda dastuuriga kaliya ma aha maxkamad gobolan jirin maxkamada aan jirin tusaale ahaan maxkamadaha maanta jira Soomaaliya dalacsiinta mishaarka magacaabida waxa dhan waxa u haysa executive branch ama qaybtii fulinta dawladda waxay ahayd dawladda inay kala saaran tahay qaybta garsoorka iyo qaybta fulinta si ay dadka ugu kalsoonaan karaan dawladda maanta hadii maxkamad soo saarto Axmed Madoobaha la soo qabto ma jirto cid ku kalsoonaan waayo ma jirto maxkamad madax bannaan oo dadka Soomaaliyeed ku kalsoonaan karaan oo dadka ku kalsoonaan karaan dawladda dhexe ma qaadayso Jubbaland ma qaadayso laba nin baa qaaday Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud baa qaaday مسؤولية دولة institution
institutionska ayaga maxaa la yidhahdaa mas-uuliyad ma qaadayaan cidda joogta mas-uuliyadda markaas institutionskaas joogta ee awoodda leh ayaa responsibilitygana qaadaya waxay khaldaan ilaa dowladda maaha wax khaladay dowladda aniga ah ciidamadaas diyaaradaha lagu daldalay horaan u sheegay waa liiga duubay axmed madoobe 12 sano meeshaas joogaa ciidan oo samaystay hub oo haystaa ciidankaas marka la daldalaa waxaan dhahay ha laga digtoonaado dagaal wiil ayaa ku dhintay wiil kuma dhishto marka de axmed madoobe la soo qabanayo axmed madoobe dalkaas laga bixina axmed madoobe sheego ma aha sheego 12 cunug wata habeen iyo maalin meeshaan madiina la dagaalay axmed madoobe ciidan oo haystaa 12 sano ciidan dhisay marka ilmihii la qaad waxa waa intii dhimatay Allah u naxariisto hadda marka waxaan leeyahay hadda iyo dan siyadada banaanba waxaan siyaasaddan waxay u baahan tahay si diblomaasiyad in la wada hadlo awal baa la hadli jiray hadda labada madaxweyne hadda ninna Turkiga jooga ninna Kismaayo mukeef ku dhex jira habeenkii wallahi iska gadanayo macna ciidan dhinta iyo ciidan Kenya ku carar wax aagashan iyo 10 maba laha Axmed Madoobe habeen hore iska dukaamaysanay Xasan Sheekh Maxamuudna maxalla diyaaradu wuxuu sii saarnaa Turkiga marka wax dhinta waa wiil Soomaaliyeed hooya ooynayso marka waxaan leeyahay ayaan darweyn aan ugu dhacday in ciidamadii Soomaaliyeed ee ayaga isku jabaan Kenya oo ayada iska jilacsaneed aan waxa arkaa ciidan Soomaaliyeed saas gacma ayagu taaga ayaan dar qor iyo boosh tuutihii wata هذا هو حما إن الصومال أيضا نسكت جبيو هذا هو حما وحي ماشي كده عن وحي مسؤولية ده قادة مدحض الصوماليات لبضنا عبايقة قادة مركو حان ليهاي أيضا كصوماليات وحال الربع إن دلكو الدفاع لهم حق إتوبي لقلب دقالهم عدواكس جب حوقن والله شاشة الميديا هداف فيرسو علوشا كوريس معنا عنق الصوماليات ولا باتنجرة أو كبد دعس وتحتا كبي بوت حتى كعر قارك والآن أي إتو محلا كين إسكديبن مركو حان ليها ومد الصوماليات دبال سكولاتو horaan u sheegay meeshaas ciidankaas meesha jooga Axmed Madoobe waa nin meeshaas ciidan ku haysto maamul ku haysto dhaqaale ku haysto wax walba ku haysto marka Axmed Madoobe sheego kale ma marka baasha waa naga halawday mid kale la soo toosiyay intaas Dr. Cabdiraxmaan Nuur Imla Soomaali TV dowladda way qaldantay ciidankan ciidaa ka dambeys in la laayo Xasan Sheekh waxa uu sheegaa ciidamadaas meesha ha ka soo celiyaan leeyahay ilinkaan ma dhamaanay Axmed Madoobe jabhad waay Axmed Madoobe waaba ku sheegay basi maxaa ku dhaaman taqaana anoo meed wata imaada anoo meed leelka baxaawir waaba shaa mooryaan weyn waa ninkaas nin oo waxa waa gaangister ciidan macnaha mardhow meesha la geeyay aqoon u lahayn dhulkii maba yaqaanaanba nimankan oo harmacad booliis waay asirta maxaa meesha geeyay بوليس ليه وايبه سفيان أمته وبرنا بوليس كانوا حلوقوا تغير مجالوين كانوا جوجل هذا أرنتاس عاد يدين معنا سومالي ويكون مذوي كفت وحاول ما شاك بحدا لوين دونا دجال كرت أشياء كده راس كمبون هرت أنا أروح معي لابد نوع الصومالي أكون دمانو يسو مركب وحان ليه أحمد مذوي إنك ماشي هيستوى أحمد مذوي معنا إسكده دبعته الصومالي ده كويسو أو قلاو معنا واحد دولة يكون دولة أمر كذا خاضو وهاي سببته معنا وحول بالشرعي كوين سببته أنا معنا دليل إن لقدم ما يمرنا أنا كوفان قبيل معنا دليل إن ماشي لقدم ما أنا أمبهني لابد النعم وين الله شن والصومالي هذيك معنا مامل كاجا هي ستيت وحال غير راسين نبض إن الدولة تقول ماتت ومعنا وضع هذا الأفرتيت هذا أرنتاس عاد يدين معنا صومالي ويكون مذوي كفت وحاول ما شاك بعد اللوين دونا كنت حرت تاس معنا الدولة تكون غلطان دولة waxay ku qaldantaa ciidan macnaha mardhow meesha la geeyay aqoon u lahayn dhulkii maba yaqaanaanba ya meesha Jubbaland dad waxa imaaday oo macnaha Ethiopia kima new police maldaha ma aqaan macnaha waxa la sheegay in horta xaqiiqo ma ahaye nimankan oo harmacad horta police waay asirta maxaa meesha geeyay ya police lee waaybe si fiican ummadda barna police kan waxa loogu tagay magaalooyinka inuu joogo markii oo meesha la xasiliyo ciidamada gorgor ama rag macnaha oo la geeyo oo sida ma aragtay raah u boodo oo macnaha Soomaaliya ay ku dhaarto la sheegay alif group maldaha iyaga kuwaasoo kale macnaha markii meesha la geeyo sifayaan laga rabaa in la geeyo booliis iyo dawladda way qaldantay ciidankan ciidaa ka dambeys in la laayo Xasan Sheekh waxa uu sheegaa ciidamadaas meesha ha ka soo celiyaan leeyahay ilinkaan ma dhamaanay Axmed Madoobe jabhad waay Axmed Madoobe waaba ku sheegay basi maxaa ku dhaaman taqaana anoo meed wata imaada anoo meed leelka baxaawir waaba shaa mooryaan weyn waa ninkaas nin oo waxa waa gaangister filmaantoor waa birjir sharci ma qabtaba waay wuxuu leeshiina wadamada kale macnaha oo tuugada ah hadda badeena ma aqoon mataqaana 300 iyo 3,300 isticmaana no ma jirto 2,800 leeyahay أذيك لا إله ورا أذي فيري يا ما بوجد مياه مرة على قرحستبا والله كلا تورتبا يا أنا قام مركض وحن للشجع دجال أم كجرنا وحسن بوجوا هذه أحمدو كان جس واي نكاس لقما أتكان هاي دور جوج واي نكان وحو أجر وود أكتين أنا هذا لكن مش شيء جاي مهو يا نكاس مجيل كده أنا عبس واي